السلام عليكم أحبابي maanta waxaan idin diyaarin doonaa chili con carne waxa la dhaho waa hilib shishiid baa laga sameeyaa laakiin anigu maanta hilibka shishiidkii aan rabay ma uu soo oolin because anigu waxaan soo gatay shishiidka cadiinta ku yar tahay maadaama uu soo oolin kan kale faadka ku badan waan ka soo tagay jiir baan soo gatay jiirta anaa jarjaran doono oo ka dhigi doono shishiid waxaa loo baahan yahay gasac tomaata gasac kaasa barbarooniga basashi barabara xawaashkii iyo xawaashkaas iyo asbadi zamba dendiyo saasuu ku shiidan yahay soo kamaan dhigin hilib shishiid waa nus kiilo hiliba oo jiir keliya wax cadiina baruura ku jirin hilib shishiid basashaan diyaarsanayna hadda dhac olive oil, nothing else. So hilibkan ku dareynaa toontaan ku dareynaa kabacdi yaanyada kabacdi kan hilibka suusa isugu dhegdhegin inaad kala farfadhisa sheeguna yaasee lagu gasa kan waa bukiisan yahay tuun iigu dar tuun iigu dar اصبر اصبر بدأت واي natural أسبوع ما عارف كيميكال جوه
mid kiimika iyo waxaa laga sameeyey afar xabo basbaas qalal aad u kulul yahay basbaaskan basbaas hindi waxaan ku shubi doonaa gasac yaanyada ahayd mumkin صار بعد حنشوف الدون هدو waxaan harsan waa barbarooniga last wala ku dari doonaa iyo kan mar baan ku diraa sababtoo diirtan kan waa bisil yahay already waa ready cooked so karis badan uma baahna marka soo dhawaado ma ku daraynaa waa diyaar xagan bariiska ku diyaarinaynaa basmati rice inta yar baa nus koob ugu filan Uncle Roger فرتكم بعبر بوير Uncle Roger دق اس اوكي واي صار سكبس عليه كان wax kale lagu dari maayo wala saliid wala basal wala shay بريسي biyo iyo xogaa cusbaa bis اوكي هذا مرق xogaa bislaaday dhag sidaan ka rabno waa hadda yaanyada waa loo jeedaa waxaan ku direynaa marka kidney beans bebeshe bebeshe waa diyaar iyada gacankiisa markaysa soo bax waxaad ugu dhigantaa meesha wax yar kadib waxaan ku daraynaa albarbaroni maraqii waa diyaar bis time for barbaroni kabacdi cunuga ku xigaa camal barbaroni dibkaan u gaabinaynaa just xoogaa yar inuu ku huursado caraftaa inay gasho keliya baan ka rabnaa barbaroni hadduu aada u bislaado wuxuu xaraar buu noqdaa mushi mana jecli marka xoogaa soo masakoota ah caraftana meesha ku jirto ayaan soo dejin doonaa هذا وسلام job is done
حياكم الله. maanta waxaan maaragtay u xiisayaan xiisa darteed u samaystay waxaa la dhahaa kan chili con carne. waa hilib shishiid, yaanyo iyo digirta beebesheeda, red kidney beans, barbarooni ka muuqda meesha u jeedaan, iyo bariis cad. wax kale meesha ma yaalaan. iyo salaatadii oo ka kooban avocado, my favorite, spinach leafkaas, beetroot, nyaanyadii xididkii daraad bashalan idin sheegay. xididka is good for the maaragtay caafimaadku u roon yahay. marka bismillah waan gelaynaa. kan maaragtay waa iska maraq maaragtay suugadii maaragtay baastada oo kale, laakiin dhadhankii dee waxaa ku kala duwan yihiin wax walba maaragtay habka loo sameeyay dhadhankii mar walba. marka bariiskan ku cunaynaa insha allah. bariiska ii dul saar. bismillah. maanta anoo cimaamad la'aan arka. maanta cimaamad ma jirta. inta isoo dhigan salaatadeeda aanay ka shidanta alaabtan. bismillah. xiisa bariiskayga ma badnaya haddaba. waa intaa yar bariis maaragtay waa. bismillah. oqashay manaa karsho yiri. oqashay manaa karshe. alxamdulillah. damn good. bariiska fiir kastaas yar saxankaasaa weyneynaya meesha. bariis badan kuma jirin, laakiin hilibkaan isku daldalaa. hilibka saan ka dhargeynaa iyo maraqa maaragtay hilib miran. 500 gram hilib baa ku jirta, nus kiilo hilib. yani hadda inta aan cunayo bariis baan cunayaa, laakiin bariiskayga hilibkayga waxaa badan, yani proteinkayga badan, sababtoo 500 gram waa bariiskayga. hilibka hilibkayga waa 500 gram. bariiskaygu ma dhama rubaca waxaa hadda aan kariyey waa nus bakeeri. nus kiilo hilib aan ku dhameynayaa kastaayo bariis. marka waxaa waaye meeshu nacfiga ku badan, proteinka ku badan. yani hilibka 500 gram waxaa ku jirta 500 gram ilaa 150 gram oo protein, 150 gram of protein. marka 150 gram protein markaan hilibka ka helo, bariiska protein yar baa ku jira, 2 gram meelaha, ma badna. digirtoo kale iyadana waa high in protein. digirtan beebesheeda meesha keliya hadda ka saaca waxaa ku jirta ugu yaraan 30 gram. isna ma aan fiirin, laakiin 30 gram kama yara, because waa high protein. meeshaad ku joogtaaba 200. marka proteinku waa muhiim. wuxuu maaragtay waxaa dhisan murqaha waa proteinka, ma ahan bariiska iyo baastada. sidaa loola socda. proteinka hala badsado, qudaarta hala badsado, farxadana hala badiya. fi amaan illah.